habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay yihiin Bakaaruhu waa suuqa ugu weyn Soomaaliya sidoo kalena laga helo dhaqaalaha ugu badan iyo cashuurta balse dabka ku soo noqnoqonaya ayaan laga badbaadin kari waayay warbixin dheeraad ah ayaan idinka haynaa suuqa Bakaaraha wararka kalena waxa kamid ah 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo wali lagu maransan yahay doorashooyinka waxaanu caawana eegaynaa caqabadaha dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay ay kala kulmaan jaranjarooyinka dhismayaasha qorshaha dhismaha ma lagu daray marka daaraha la dhisayo baahida dadka naafada ah barnaamijkeena click ee tiknoolajiyada toddobaadkan waxa uu booqday carwada qalabka casriga ah ee Las Vegas robotiyo iyo qalab kale ayaa lagu soo bandhigay kala soco BBC-da raadiyaha online-ka telefishinka iyo bogagga bulshada halkani waa caawa iyo caalamka iyo London مسؤولينta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay wali baarayaan oo ay baaritaan ku wadaan sababihii keenay dabkii xalay ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho suuqa Bakaaruhu waa mid kamid ah suuqyada ugu waaweyn Geeska Afrika waxaana laga qaadaa cashuurta ugu badan ee ay dawladda Soomaaliya qaato ilaa iminka laakiinse ma laha gurmadka degdega ah ee wax ka qabtay dhibaatooyinka dabka ee soo noqnoqday Maxamed Xaraare ayaa eegaya waa ololka iyo uurada dab xalay fiidkii qabsaday Bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn dalka Soomaaliya waxa la tuunsan yahay inuu dabkan ka bilowday dukaamada yaryar ee ku yaala qaybta dharka hudhayda lagu iibiyo isagoo kadibna ku sii faafay qaybaha maacunta iyo raashinka gawaarida dabdamiska ah ma aysan soo gaarin suuqa xilli hore sida ay sheegeen ganacsatada wax gurmad ina helno waa suurtagal weysay gurmadkani wuxuu noqotay mar laal markuu dhibka dhamaaday oo aad noo soo gaaray markaas gurmadka noo imaaday inta ka sogaysa gurmad waa weyn amin dambe ayay dabdamisyada maamulka gobolka Banaadir kuwa ay shirkado gaar ah leeyihiin gacan ka geysteen daminta dabka iyagoo taaganaya hantidoodii baabaaday ganacsatadan awoodii ay taalna umaysan lahayn inay badbaadsadaan wax yar ee ay shaqaysanayeen dadka qaar ayaa nafsadooda halis u galiyay si ay u soo badbaadsadaan qasnado ay lacag cadaan ah ugu jirtay wuxuu ahaa dab arxan daran oo argagax iyo ama kaag reebay wali dambaska ayay dadku baarayaan si ay wax u nuucaynsadaan hanti badan baa meeshan nooga baabaaday dabka aad buu noo cereeyay hanti gaaraysa $40,000 baa nooga baabaaday 3 dukaan baan kula meesha kamankay waxba kama harin waxaas arkaysana meesha yaalo burka iyo gurtay baa kaaran Abdiqaadir Ibrahim Idrisa iska lahaa xoolaha wiilkayga waay xoolihiisa saana waa shalay la soo adeegay laba baqaar laga soo adeeg xoolihii waa kan hal habbo waa kan bariisaas noqday yaa loo raacaa sokor saas noqotay yaa loo raacaa asagii waa waashti waa iskaga tagay waa cararay meelahaas laga qabtay quraan saara hadda lagu maqanya suuqa Bakaaraha ayaa hoy u noqday dab iyo olol bilowda habeenkii marka laga hoydo dhowr goor ayuu gubtay dhowr sano gudahood wuxuuna ceertiyay ganacsato nolol maalmeed ka raadsata suuqa Bakaaraha ma ahan afar ma ahan shan mar ma ahan dabka marba ayuu soo laabtay waxa loo baahan yahay dawladda federaalka Soomaaliya haday maqlayso waa in suuqa Bakaaraha wax laga qabta wali war rasmi ah oo lagu qiimeynayo baaxadda hantida burburtay iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay ma soo bixin muuqaaladan ayaa samuujinaya xaddiga masiibada mar kale asiibtay suuqa Bakaaraha tiradada ayaa la soo sheegayaa inay ku geeriyoodeen halka ay qaar kalena ku dhaawacmeen rabshado ay sababeen doorashooyinka la isku haysto ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo musharaxa laga guuleystay Martin Fayulu ayaa ka soo horjeeday natiijooyinka lagu dhawaaqay Felix Tshisekedi oo ah xisbiga mucaaradka kale ayaa la sheegay inuu ku guuleystay doorashada iyadoo ay jiraan eedeymo inuu heshiis la galay madaxweynaha xilka ka degaya Joseph Kabila si ay xilka isula hayaan Mr Fayulu ayaa sheegaya in garsoorka dalkaasi sideedaba uu Joseph Kabila uu u taliyo sidaasi darteedna aanu ku helaynin fursad uu ku guuleysto We know that the constitutional court is really surrounded. waan ogahay in maxkamadda dastuuriga ahi ay ku hareeraysan yihiin Kabila iyo xulafadiisa But we want laakiin ma doonayno inaan fursad isaga u siino uu ku dhaho sharciga maynan marin
waxaan samaynaynaa wax kasta si loo helo natiijo cad. Mr. Fiolo waxa kale oo diiday inuu taageerayaashiisa u sheego in ay joojiyaan dibadbaxyada ay wadaan iyo rabshadaha halkaasi ka socda. Booliska ayaa sheegay in 5 qof ay dhinteen, sidoo kalena 17 booliis ay dhaawacmeen rabshadihii ku xigay ku dhawaaqida natiijooyinka doorashada. Mr. Fiolo waxa uu sheegay inuu ka baqay rabshado kale ay sii dhici doonaan haddii uu yiraahdo gudida doorashadu aanay soo saarin natiijada saxda ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhankiisa Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in rabshadaha la joojiyo. Afhayeenadiisa mid ka mid ah ayaa sheegay in xogayuhu uu yiri waxa loo baahan yahay in dhinacyada oo dhami ay isxakameeyaan oo ay khilaafyada doorashada ku xaliyaan si degan oo sharciguna uu dhigayo. haddii aynu eegno dhanka kale kiniisadda Kaatoliga ah oo awood weyn ku leh dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa iyaduna su'aal ka keentay natiijooyinka doorashada. Wariyaha BBC-da Gawas Kawana ayaa sharaxaya doorka kiniisadda Kaatoliga ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. The Catholic Church has been very horaba kiniisadda Kaatoligu waxa ay lug weyn ugu lahayd sida loo abaabulayo dadweynaha iyadoo marar badan ay ugu baaqday dadku inay jidadka isugu soo baxaan gaar ahaanna marka la rabo in la helo xuquuqda dimuqraadiga ah iyo isbedelka. Imikadan aynu joogno kiniisadda Kaatoliga waxay dad badan u arkaan inay iyadu ka mistaaqiyad weyn tahay qaar ka tirsan xisbiyada mucaaridka ah. kiniisadda Kaatoligu waxay sheegtay intii aan la soo saarinba natiijada doorashada hordhacda in aanay iswaafaqsaneen xogta la soo ururiyay la hayo ee ay hayaan kormeerayaashii doorashooyinku iyo natiijadani. kiniisadda Kaatoligu iyagu may sheegin magac khaas ah, laakiinse haddiise ay ku baaqdo kiniisadda Kaatoligu in dadweynuhu ay isu soo baxaan, taasi waxay keenaysaa in halkan xaaladdu ay ka sii darto oo laga yaababa inay gasho xaalad rabshada ah. into a violent situation. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. madaxweyne Trump ayaa mar labaad ku goodiyay inuu ku dhawaaqi doono xaalad degdeg ah oo qaran si uu kharash ugu helo dhisidda derbiga xadka Mareykanku la leeyahay Mexico. waxa uu shalay booqday gobolka Texas si uu sii wado ololihiisa xadka kaasi oo ay diidayeen dimuqraadiyiintu. Trump ayaa Congress-ka ka codsaday 5.7 bilyan oo dollar. khilaafkan ayaa loo xidhay qaybo ka mid ah dawladda Mareykanka. maxkamad ku taala Myanmar ayaa tuurtay rafcaan ay qaateen 2 wariye oo ka tirsan Reuters kuwaasi oo lagu xukumay 7 sano oo xadhiga iyadoo lagu helay inay jabiyeen xeerka sirta ee dalkaasi. Wallon iyo Kwaizo ayaa bishii September la xukumay iyagoo ka soo warramay xasuuqa dadka Rohingya ah ee Muslimka ah. warbixin ay maalgelisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu sheegay in 10 qofba mid ka mid uu helo macdanta laga helo cuntada ee fiberka. waxay tan muujinaysaa in qofka cunaya cuntadaasi macdanta lehi uu ka badbaadi karo wadna xanuunka, vaaliga iyo cudurro kale. waxayna khabiirada cuntadu sheegeen in la badsado cuntada midhaha laga helo. bilihii ugu dambeeyay tirada tahriibayaasha ka soo tallaabaya badda Mediterranean-ka ee Yurub imanaya ayaa hoos u sii dhacday, waxayna u sabab tahay baa la qayb ahaan lacagta midowga Yurub siiyeen maleeshiyooyin dawladda Liibiya ku xidhan si loo joojiyo dadkaasi. hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa daadgureynaysa kuwooda aad u liita. dhalinyaro Soomaali ayaa ku jira dadka hoggaanka ugu go'ay Liibiya ee iminka Niger la geeyay. waa muuqaallo darxumo waxaana ay ka mid yihiin meelaha ay maalgeliyaan midowga Yurub ee loogu talagalay inay ku hor istaagaan in dadka ku soo tallaabaya dooniyuhu ay soo gaadhaan midowga Yurub, waxaana ay ku yaalaan meelo badan oo ka mid ah dalka Liibiya. laakiinse meeshan aad arkaysaa waxay dhaantaaba kuwa la kala iibsado dabeetana ay kuwa dadka tahriibiya ku xadgudbaan oo ay faraxumeeyaan amaba ay garaacaan iyadoo halkaasi qaarkood ay ku naf waayaan. sanad ka hor ayaa hay'adda u qaabilsan qaxoontiga qaramada midoobay UNHCR waxa ay bilaabeen hawlgal cusub oo ay ugu talagaleen in dadka dhibanayaasha ah kuwooda ugu liita ay ka daadgureeyaan dalka Liibiya. waxaana qaar badan oo ka mid ah la keenay xeryo ku yaalla dalka Niger kuwaasi oo badankooda ahaa qaar doonya laga soo dulqabtay amaba laga soo badbaadiyey kuwii qafaashay. cabdi waxa uu ka yimid Soomaaliya waxaana uu imika 3 wiig ka sokeeyay dalka Liibiya. cadceedda maanan arki jirin, god baan ku dhex jirnay oo ay neeftu dirqi tahay. haddaad istiraahdo hadalna waxaad halis u galaysaa in lagu dilo. cabdi iyo 9 kale ayaa halkaasi ku guulaystay inay kii ilaalinayay iska qabtaan
dabeetana waxaa bilaabantay in la badbaadiyo oo halkaasi booliska magaaladaasi ay soo badbaadiyaan waxaa muuqaaladan duubay qof halkaasi isagu taagnaa waxay halkan ku baranayaan muusig ay isku ilowsiinayaan dhibaatooyinkii ba'naa ee soo maray carruurta qaxoontiga ah ee halkan ka muuqataa waxa ay la soo kulmeen dhibaatooyin silic iyo saxariira marar fara badan waan isku dayay inaan is-ilowsiiyo way dhacday inaan markii ugu horreysay aan lay jaraymi xasuuso fara badan oo Liibiya iyo waxyaalo aad u fool xun inaan soo xasuusto sida saaxiibkay oo saxaraha ku dhintay anigoo arkaya waxyaalo fara badan way igu timideen hay'adda UNHCR ee qaxoontiga qaramada midoobay ayaa waxay sheegayaan in 50,000 oo qaxoontiya oo weliba dhibaatada u nugul iyo carruur badan ay weli ku jiraan xeryo halis ah oo ku yaala dalka Liibiya qaxoontiga ka tallaabaya dalka Liibiya ee ku jihaysan qaaradda Yurub ayaa sanadihii ugu dambeeyay aad hoos ugu sii dhacaya inkastoo weli bil walba halkaasi ay soo gaadhaan 1,000 qof oo iyagu u badheeraya khatar kasta oo jirta mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay ugu waaweynaa si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram weli waxa inoo soo socda waxaanu caawa eegaynaa caqabadaha dadka naafada ama laxaadkoodu dhimaya ka haysata jaranjarooyinka dhismayaasha iyo daaraha ee ay korayaan weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka balaan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn bakaaraha oo suuqa ugu weyn Soomaaliya ayaa sidoo kalena suuqa ugu dhaqaalaha badan ee cashuurtu ay ka mid tahay ka soo baxdo haddana dabka ayaa ku soo noqnoqday oo aan laga badbaadin 5 qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo weli dalkaasi lagu muransan yahay natiijada doorashooyinka qaar ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa mulkiilayaasha dhismayaasha u sheegay inay dhibaato ku qabaan jaranjarooyinka ama kaabadaha daaraha marka korayaan maadaama aanay iyagu halkaasi ka talaabi kareynin dadka naafada ah ayaa ka codsaday in guryaha dhisitadooda lagu sameeyo marino ku haboon dadkaasi laxaad kala wariyaha BBC da ee Hargeysa Sidiiq Burmad ayaa weydiiyay Maxamed Muuse Jaamac oo ah wiil dhalinyaro ah oo naafa ah kana hawlgala warbaahinta gudaha xaaladooda waxaan ahay Maxamed Muuse Jaamac oo loo garan og yahay Haldoor waxaan ahay wiil aan u dhameyn laxaadkiisu laakiin ku faraxsan kuna faanaya qadarka Ilaahay uu qadaray xanuunka igu dhacay waxay dhaqaatiirtu ku sheegeen meningitis anigoo da'yar ayuu igu dhacay markaas oo dhiganayay school boardina markii uu asiibay xanuunkan igu dhacay ma noqon mid nolosha kan yajaba oo isdhiiba laakiin waxaan isku dayay inaan hore u socdo oo aan noloshaydii dib bilowdo waxa dhacday inaan hamigaygu noqdo inaan weliye noqdo in badan oo sanada aban ku hamiyay inaan weliye noqdo anigoo ka soo bilaabaya radio yar aan cajalada ku duubayay anigoo weliye iska dhigaya alxamdulillah maanta waxaan joogaa anoo rumeeyay riyadeedii saxafinimo waxaan ka mid ahay waliyaasha Soomaalida ee ka hawlgala mid ka mid ah TV-yada Soomaalida waxa ka mid ah imika waxaan ka soo baxay warkii waxaan doonayaa inaan barnaamij xagga sare ku yeesho marka waxaan doonayaa inaan tago laakiin kaabadii wali way hortaagan tahay caawinaad asxaabteeda baan u baahanahay nolosha sideedaba lagama waayo caqabad iyo wax adag oo ku hor istaaga waxa dhibaato weyn nagu haya jaranjarooyinka dhismayaasha wadankayaga aniga iyo kuwa ila midkii waxay doonayaan inay wax bartaan inay shaqaystaan iyo inay Ilaahay u cibaadaystaan laakiin meel kasta oo aan inta ka doono wax naga horeeya buur weyn oo aanan ka gudbi karin tusaale aniga igu dhacdo kooban baan idin soo qaadi karaa qaar ka mid ah asxaabteeda ay casuuntay halka igu casuumeen waa mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa
waxaana dhacday markii aan goobtii sidaa u tegey inaan arkay inaan ahayn meel aan si fudud ku kori karo oo aan asxaabteeda waqti wanaagsan la qaadan karo. taasina waxay igu dhalisay inaan ka tiriyo tixdan yar ee kooban. farxad kula cawee baan lahaa culadadiiniiye, khayrkaa la ciid baan lahaa caawa iyo leyle, mar haddaanay caadkay koreen caga ku gaadhaynin, cakuyeey maxaan fali bulshooy ciil aday badaye, dadka kale curyaankooda way wada ciseeyaane, cindigiisu wuxuu doonayay cududda saaraane, cilmi iyo waxaa loo dhigaa cashar aqooneede, cid inuu u baahdiyo dhib baa lagala ceesaaye, adna kaabaday celinaysaad igu canaadaaye, cakuyeey maxaan fali bulshooy ciil aday badaye. qalab badan oo kuwa guryaha ah oo qaali ah ayaa qashin qubka ku dambeeya marka ay shaqeyn waayaan, sababtoo ah lamaba hagaajin karo oo dayactirkooda ayaa qaali ah. dukaamada wax dayactira ayaa haddaba isku dayaya inay dhibaatadaasi wax ka qabtaan, waxaana la rajeynayaa in warshadaha ay ka dhigaan qalabka elektroonikada waliba in si fudud loo dayactiri karo. cismaan cabdi xasan ayaa eegaya dayactirka. qiiqa baxaya wuxuu qayb ka yahay dayactirka socda. Portsmouth oo ku taalla koonfurta England waxay koox iskood isu xilqaamay Sabtigii ka caawinayeen dadweynaha inay u dayactiraan alaabaha ka ciladoobay. dukaanka dayactirka ayay u bixiyeen, waxayna qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq adduunka ka jira. mid ka mid ah dadweynaha ayaa u keentay timo qalajiye gabadheedu lahayd oo aan kululaanayn. way shaqayn waayeen, way iska tuuri rabtay. waxaan ku idhi hooyaday maanta ayaan imaanaynaa, waxayna hooyo igu tiri soo qaad qalajiyaha. waa keenay, nin ayaana noo hagaajiyey. balse dayactirku ma fududa mar kasta. qalab badan ayaa xabag la isugula dhajiyey maanta, lamana bixin karo marka ay jabaan. inta badan dadku halkan waxay keenaan iyaga oo moodgaraysan oo xidhan. dadka ka shaqaynayana waxay noqdaan dad ku takhasusay. way adag tahay inaad hesho oo aad ogaato macluumaad ku saabsan. cilmi baaris ayaa muujinaysa in tiro badan oo qalabka guryaha aysan u cimrinayn sidii ay markii hore ahaan jireen. tani waxay saamayn ku yeelatay isbeddelka cimilada, sababtoo ah samaynta qalabka la beddeli karo waxa ay wasaqeeyaan hawada. UK iyo Yurub waxay dawladuhu kaga jawaabeen baahida ay dadka qabaan ee ah in la soo saaro xeerar cusub oo alaabta ka dhigaya in ay cimriyaan si fududna loo dayactiri karo. dadka aad ayay ugu caroodaan alaabaha jaba ka hor waqtigooda oo aan la dayactiri karin. ma waxay tahay in warshaduhu sameeyaan alaab cimrinaysa sida dadku filayaan? isbedelada la soo jeediyey halkan waa laga soo dhawaynayaa, balse warshaduhu kuma faraxsana qaar ka mid ah qaynuunada cusub. waxay sheegayaan in tani tahay hiigsi aan dhab ahayn oo suuragal ah inuu hor istaago in wax cusub la soo saaro. dhinaca kale kuwa u ololeeya deegaanku waxay sheegayaan in isbeddelka uusan gaarin halkii la rabay, balse waxay u muuqataa in la galay waaga dayactirka. caawiyo ciyaarahan haddii aynu eegno, ciyaartooygii hore kaalinta koowaad haysan jiray tenista caalamiga Andy Murray ayaa sheegay in ku soo gabagabayn doono ciyaaraha Wimbledon ee xagaagan. ciyaartooygii uu ahaan jiray tenista kol hore ayaa laga qalay misigta, isagoo rajaynaya inuu sii kordhin doono 3 koob oo caalami hore u qaaday iyo 2 bilood oo Olombikada uu haystay. ninkaasi shir jireed ayuu ka baxay oo lagu soo celiyay kadib markii uu dareenkiisu uu qaaday oo uu fadhii kari waayay. Yeah, I think there's a chance of that, yeah, for sure. fursad la hubo ayaa taa ka jirta, maxaa yeelay sida aan sheegay anigu ma hubo. ma hubo inaan ku dheeli karo xanuun 4 ama 5 bilood oo kale. Liverpool ayaa Brighton bari la ciyaari doona, waxaanay rajeynayaan inay lugaha sii fidsadaan iyagoo 4 dhibcood ka hogaaminaya horyaalka Ingiriiska. Manchester City ayaa ku daba jirta oo iyaguna kaalinta labaad jooga. axadana waxaa la eegaya ciyaarta Manchester United iyo Tottenham, waxaana isha lagu hayaa weeraryahanka Harry Kane oo 6 ciyaarood ugu dambeeyaba goolasha u dhalinayay. caawana waa caawadii barnaamijkeena Click ee toddobaadlaha teknolojiyada. waxyaabaha idinku hayno waxaa ka mid ah carwada electronics ee Las Vegas dalka Mareykanka. shirkadaha ugu waaweyn oo dhan baa isugu yimid, marka mid walba halka waxa keentay qalabkeedii ugu dambeeyay. waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya.
sannad kasta shirkadaha soo saara tiknoolajiga casriga ahi waxa ay isugu yimaadaan magaalada Las Vegas. Shirkadda Samsung ayaa soo bandhigtay muuqbaahiyayaal sida dhalada muuqaalada u muujinaya tayada aragga midabaduna uu aad u heer sarreeyo. shirkadda kaliya ee samaysa muuqbaahiye noocan oo kale ahi waa shirkadda LG. haddii aanay oolin robot maaha bandhig tiknoolaji. robotyada la soo bandhigay waxaa ka mid ah robotka Bing Bong. waa robot bisad ah oo la weheshado oo lala cayaaro, waana aalad ka caawisa carruurta autism-ka leh in ay si fudud u fahmaan dareenka wejiyada dadka oo inta badan ku adag. robotkan oo magaceeda la yidhaahdo Scribblet waxa ay u beddeli kartaa gidaarkaaga shaqo farshaxan. musawirro ayay saaraysaa. ma aha mishiin degdeg ku shaqeeya, laakiin ogow waxyaabaha quruxda badani wakhti ayay qaataan. ugu dambayntiina waa aalad ay ka helaan dadka xiiseeya filimada Star Wars. aaladdan waxaa loogu talagalay in ay xoog weyn tahay. baatariga ay ku shaqaysaana waxa uu qaataa ilaa 6 saacadood. macnaha 6 saacadood ayaa dheeli doonta. qiimuhu waa $250. waxoogaa sarif ah waa inaad jeebka ku haysaa, amaba aad ka soo jeedaa qoys jeebkoodu qoyan yahay. wararkii ugu waaweynaa caawa haddaynu dib ugu noqonno suuqa bakaaraha ee ugu weyn Soomaaliya ayaa dab weyne ka kacay. suuqaasi oo aan weli xal loo helin in dabkaasi la xalliyo, iyadoo xalay toole halkaasi khasaare ka dhacay. 5 qof ayaa iyagu ku dhintay aan idhaahday. haddaynu gudubno dalka Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, muuqaalada darkaysa waa wali waa muuqaalihii bakaaraha. sawiradaasina waa kuwii waxa weeyaan iminka rabshadaha Kongana iyadana waxa ka taagan rabshado oo la isku haysto waliba xagga doorashada sidaad maqlayseen. caawana waxaan idinkaga tegayaa ugu dambeyntii waa socda halis ah, laakiin haddii aad taqaano oo aad xirfadeeda leedahay waad isku laba rogaysaa socodkaasi. waxa weeyaan waa daayeerada makaakiga la yidhaahdo ee Japan jooga. waxaana la sawiray iyagoo ku lugeynaya waayiradan waaweyn adag ee dhumucda leh oo aad moodo inay si caadi ugu lugeynayaan. wana waayir waxay ku lugeynayaan markaad eegto. markaa waa magaalada Mutsu oo iyadu ah magaalo dalka Japanka ah oo aynu ku naqaano inuu yahay wadan high technology leh. markaa daayeeradan waxay soo kartaaba technology ay la qabsadeen. daayeradu waa daayeradaas cararaya. xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali. intaas ayaanu ku soo gabagabeynay. nabadgelyo.